بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكسر دعوة برنامج حساب أنا ترتك على بورك جراسي كجامعة سومالان أو سيتشوكتا دوغلا ساعتان واربعين كل دوان وبرنامج أنا قلت لك قلين لقول رجلي دليرت على بورك لا يهداها يبدأ sidoo kalena kor loogu qaadayo xirfadda dhinaca ganacsiga ee ardayda jaamacadaha ku jira ee curinta sameeyay dhinaca halabuurka ganacsiga barnaamijka tartanka halabuurka sanadadii hore waxaan ku soo qaadanay qaybo kamid ah ganacsiga sidoo kale arrimaha bulshada iyo tiknoolajiyada qaybo kale oo ka hadlayay waxaan u yeeri doonaa barnaamijkan inaynu gudagalno gudoomiyaha guddiga kala saaridda ahna khabiirka barnaamijka inta badan halabuurkiisa iyo curintiisa kale Professor Mubarak Ibrahim Ar waxaan u yeeri doonaa ganacsade Cabdiraxmaan Buraale waxaa kaloo u yeeri doonaa ganacsade Cabdi Yusuf Ar oo ah mulkiilaha shirkadda Sagarjad waxaan u yeeri doonaa ganacsade Ismaaciil Meecaad waa kuma Cabdi Yusuf Ar cabdi yuusuf aar waa ganacsade waxa uu 15 sano ee u dambeeyay ahaa maamulaha guud ee sharikadda caanka ah ee Sagaljad waxa uu hore uga soo shaqeeyay sharikaddii Bitag oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka sharikadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka waxa uu cabdi digriga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga waxaanu hadda wadaa digrigii labaad waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia waxaana uu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International Cabdiraxmaan waa asaasaha iyo gudoomiyaha sharikadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaana xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecaad Ismaaciil Meecaad wuxuu shahaadada heerka labaad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee sharikadda Meecaad Group waana asaasaha xarunta tababarka iyo shaqaabuurka dhalinyarada ee loo yaqaano Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ahi xirfado iyo carbis shaqaba kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecaad waa aqoonyahan ganacsato ah oo aqoon iyo khibrad durugsanba u leh maamulka hogaaminta iyo hal-abuurka waa kuma Mubarak Ibrahim Ar Mubarak Ibrahim Ar waa hal-abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Badar waxaan markan ku soo dhaweyn doonaa koox ka socota jaamacadda New Generation oo barnaamijkan aan ku qiimeyn doono bal barnaamijka ka qayb galayaan jaamacadda New Generation ardayda ka socota waxay ku tartamayaan farsamada qodaalka casriga ah ee beeraha waa barnaamij cusub ay doonayaan soo kordhiyaan tartankan ay ka qayb galaan waa tahay kubaad haduu Cabdirasaaq aad baan idin habaleeyay iyo Cabdinaasir ba waxa jecel saddex mid baad haysataa saddex amir waxaad soo bandhigi doontaa barnaamijka halkan aad ugu talagashay dadweynaha aad la wadaagto habeenkan caawa waxaan jecel ka faa'iideysan doonto waqtiga bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle marka ugu horeysa isku keenay madashan magacaygu waxa weeyaan Cabdirasaaq Maxamed Ibrahim waxaan ka socdaa jaamacadda New Generation farciida magaalada Hargeysa mashruucan ku tartamaya waxa weeyaan waa beer magaciisa waxa loo yaqaanaa farsamada qodaalku waxay soo saari doontaa fruitiska iyo vegetables-ka oo aad loogu baahan yahay dalka 12 biloodba waxaan isku dayi doonaa inaan soo saarno farsamada qodaalku maxay kaga duwan tahay beerihii hore imika halkan beer baa ku tartamaysay maxay kaga duwan tahay laftarkeeda waxaan ognahay beeraha saddex baa loo qaybiyaa marka laga hadlayo subsistence farming intensive farming iyo commercial farming Somaliland guud ahaan waxa u badan tahay 99% subsistence farming oo ah quudda daruuriga qofka ka soo baxa beertiisa beertii wax ka soo saaraya isaga ma dhaafsiisana isagii naftiisa u kooban tahay kharashka ka soo baxa isaga dib isticmaalaya markaasi ma awoodo inuu suuqii la wadaago oo dadkii uga faa'iideeyo markaasi sidoo kale beerteedu waxay kaga duwan tahay beerihii kale waxaan aaminsanahay farsamada qodaalku inay tahay beerta ugu taariikhda weyn ee Somaliland sideeba u tahay farsamada qodaalku waa beertii ugu horeysay ee laga hirgeliyay geedaweyn Somaliland oo dhan 1954
waxa laga hirgeliyey intaanu dowladda ingiriisku iman awowgii baa ka keenay dibadaha dalagii ugu horreeyey laga beero degmada Arabsiina wuxuu ahaa saytuun maanta Soomaaliland oo dhan dhirta isticmaalayso beertii ugu horreysay ee laga soo saaray waxay ahayd farsamada qodaalka taasina waxaan maleynayaa inay tahay waxaanu dheernahay dadka waxaan isticmaali doonaa habka casriga ee loo yaqaano drip irrigation sidoo kale waxaan isticmaali doonaa dhulka caadiga ah labaan u qaybin doonaa greenhouses kana qayb baan isticmaali doonaa drip irrigation kana qayb baan isticmaali doonaa dhulka caadiga ah ee dalaga laga beero waxaan u adeegsan doonaa drip irrigation wadankeena waxa jira surface irrigation baa la isticmaalaa surface irrigation kaasi faa'iidadu leeyahay waxa weeyaan in biyihii ay ka khasaaraan wado inta laga marayaan dalagiina meel fog buu ku yaalaa dhulkii baa biyo iska cabiya meel aanu dalagii ka bixin taasaan ka hortagi doonaa marka drip irrigation baa dhulka caadiga u isticmaali doonaa qaybna greenhouse baan isticmaali doonaa beerteedu waxay ka kooban tahay 3 beerood baanu leenahay degmada Arabsiya ku yaala mid waxay ka kooban tahay 100 hektar mid waxay ka kooban tahay 50 hektar midna waxay ka kooban tahay 5 hektar oo kaliya marka dhammaantood qaar fruitskan ka soo saarnaa qaarna vegetables-ka ayaanu ka soo saarnaa waxaanu doonaynaa inaanu isbeddel samayno oonu soo saarno dhir aan hore loogu arag Somaliland waxaan ognahay inay ku dhasho maxaa la yiraahdaa liin macaantu 4 sanadood ilaa 3 sanadood waxaanu keeni doonaa wadanka dhir ku dhasha 2 sano gabigeedba liin macaan 2 sano ku dhalaysa waa inagu Soomaali hadeen nahay isbeddelka ma naqaano haddii uu awgeen u beeran jiray qaabka dhirta inuu sidoo kale wali beerina caalamka waxyaabaha inaga horumareen waxa kamid ah waxay isticmaalaan isbeddelka oo dalag ka muddo dhow wax soo saarkiisuna ka farabadan yahay isticmaalaan halkeen u soo iibgeynaa waxaan u soo iibgeyn doonaa suuqyada Hargeysa meelahan u iibgeyn doonaa waxa kamid ah hoteelada goloseriyada suuqa traditionka ay gobonimo waliba halkaas aan xoog saari doonaa waxaanu aragti leenahay waxaan doonaynaa inuu ka saarno suuqa gabi ahaanba wadamada qalaad inooga imanaya dalaga inooga imanaya wadamada qalaad ee Soomaaliland ka baxsan sidee baan macmiilka soo jeedinaa 3 qodob baan soo jeedinaa macmiilka koow waxaan soo jeedinaa inuu qiimihi hoos ugu dhigno salaam faarax 9,000 buu siyaa tamaandhada 6,000 baan siinaa 5,000 baan ka tibinaa anigu khasaarin sidoo kale haddii uu naga iibsado 20 kiilo saxaarad waxaanu markaasi aan ugu dari doonaa 1 kiilo oo bilaash aad buu maasay ardaygaasi waxaan jeclahay shacabka u tuntaan ila soo dhaweysaan si fiican buu soo bandhigay waxa weeye waa Cabdirasaaq Maxamed Ibrahim iyo Cabdinaasir Cumar Xuseen waxaan ku wareejinayaa xubnaha guddiga mashruucaasi qodaalka farsamada ay soo bandhigeen bal qiimaynta u horeysa ay bixinayaan waxaan ku soo dhaweynayaa Ismaaciil Meecad yihiin akhyaarta soo jeedis barnaamijka aniga waxaan siinaa 100% waa tahay cabdi su'aal 100% Cabdiraxmaan Buraale marka hore waan idin hambalyeeynayaa waan idin duceynayaa guul waan idin rajeynayaa 45 waa tahay waxa laga yaabaa barnaamijka intuu ku wada jirno dadka hadalkooda oran u yihiin sidoo kale marka wax la deeray ma la qorayo aad baa taaliftigeeda loo kala yaqaanaa waxaan geli doonaa qaybtii labaad ee ahayd bal in ardaydaasi isdifaacaan in xubnaha guddiga halka fadhiya ka dhaadhiciyaan mashruucan ay soo bandhigeen qoraalka ay guddidu ku haysteen oo qiimayntooda hore wax ka bedeli doonaan maskaxdooda ama ay u kordhin doonaan dhibco badan ay ku hanan doonaan waxa ku xirnaan doonta sida isku difaacaan iyo awoodda u leeyihiin in ganacsigooda ay difaacaan ama hadalka qaabka u gudbinayaan waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdirasaaq iyo Cabdinaasir oo guul u rajeynayo iyo xubnaha guddiga aan u kala baxo waxaan ugu horeysiin doonaa Cabdi Shuwaar ama aan idhaahdeen Ismaaciil Meecad mahadsantiin kulley business markaad ku jirto caqabado badan bay iska leedahay laga yaabaa su'aalahayguna qaar ka mid ah inay noqon karaan marka wax niyad jab ayaan jirin baan marka hore aan idinku oran lahaa dhammaantiin waxaan isweydiinayaa beer taariikhdaas ilaa 1954 ilaa intaasoo dhan soo socotay taariikh dheer bay leedahay runtii waxyaabaha aad codsateen hadda aad lacagtan aad sheegteen aad ku isticmaalaysaana waa qalabkii basiga ee beerta laga wadayay marka laga yimaado dhowr item oo drip irrigationkii waxyaabahaasi cusub marka laga yimaado marka bal sidee lagu qanci karaa ganacsi ahaan intaa hadda aad ku shaqaynaysaan ee beerta ay socotay inay wax soo saar iyo faa'iido ay samayn karto waxaa jirta san hore soo sheegay beeraha Soomaaliland waxay u badan yihiin subsistence farming aniga ugu markuu noolaa beertayda wax loo beeri jiray subsistence farming oo ah qofka iyo noloshiisa inay ku tiirsan tahay beertii oo soo dhaafsiisanayn sidoo kale waqtiga dalaga la beeri jiray dadka qaar baa cabsi ka qabay tusaale ahaan oo kale wax laga sheekeeyay in saytuunka markii ugu horeysay la beeray ay dadku qaar moodayeen inay ku dhimanayaan
markii ugu horeysay ugu beeray marka waqtigaasi maxaanu soo iibin lahaynba waaba laga baqayay dalagii qaar baa ka baqayay dalagii maxaa la soo iibin dadkii baan fahansanayba marka muddo intaa leeg iyo maanta maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan maanta waxaan isticmaalnaa drip irrigation hab casri aan isticmaalnaa marka waxaan ka dhignaa beerta commercial marka hore maxay ahayd subsistence farming bay marka waxaan doonaynaa inaan ka dhigno qaab commercial anagoo isticmaalnaa greenhouses iyo kuwaas aan soo aruuriyo marka aan anigu hadda guddigana ku jiro markaan qiimeynayo waxaan u baahanay inaan ku qanco waxaan faa'iido ma sameynaya waa ganacsi dhinaca ganacsi bes baan ka eegaya hadda marka wixii aad haysay hadda sidii ay ahayd beertu wax faa'iidood ka sameeyay jirta ilaa hadda sida ay tahay hadda family wuxuu ka kooban yahay 12 qof saddex beerood baan leenahay san hore soo sheegay ay family-ga beerta marka anagu qaabkan doonayna inaan ku beerno anaga doonana beer gaar ah inaan u baxno family-ga nimkoon la shaqeyno oo dalagaan ku soo saarnaa beerta marka dad doonaysa dalag waxaan u sheegaa waxaan soo saarno iminka سياشي يقصوا عليه كجدو عبد الرزاق إن يرمي كسي دير لها وح معني فائدة أو ديري أو أنو gaarsiin inoo gobolada hawa yaraatee ma sii jirto laakiinse annaga ayay nagu kooban tahay imikana waxaanu doonayaa inaanu tafaxaydano inaanu soo saarno wax soo saar badan oo dhammaan goboladoo dhan aanu gaarsiino annagoo isticmaalna habka greenhouse-ka drip irrigation systemka iyo macnihii dhirkan cusub ee ku baxaysa macnihii muddada kooban ku soo saarta wax soo saar high yield ay annagoo isticmaalina ayaanu doonaynaa inaanu markaa insha Allah isticmaalno سؤال كوم بن دويدين يا كل وحي تكنيكال اسماعيلو ياك فديبا حق بيره aad khabiir ugu ah laakiin anu mid guud baan weydiinaya oo ah waxaad ku sheegteen proposalkiina ama presentationkiina in beertan ay tahay beer family u leeyahay oo awooga iyo imakana dhowr iyo 10 qof oo family ay wadaan ma la oran karaa marka maaha business idea cusub oo idinku aad generate garaynaysaan ama keenteen haddii se aanay ay tahay oo macnihii aanay ahayn businesska cusub maxaa ku soo kordhinaysaan tii hore uun kaga duwantii maadaama aad hore u sharaxday bal dhowr qodob noo sheeg waa si wanaagsan greenhouseska horta waa laga isticmaalay Soomaaliland oo dhan iminka ma soo kordhinaan oo greenhouseska laakiin beerteedu saan hore kugu sheegay waxay leedahay hadda greenhouses waxa noo yaala annaga xaafadda greenhouses bay isticmaashaa maadaama saddex beerood leenahay annagu waxaan u bixi doonaa beer gaar ah oo beerta kale tagi doonaa annaga oo doonayna inaanu ceelka beertaasi kale ay leedahayna aan kaga soo saarno wax marka haddaan su'aasha kaaga jawaabo waxay noqonaysaa igu sharci jawaabta macnii ma wax aad adinku ikhtiraacdeen cusub miyuu ku jira mise waxa doonaysaa inaa horumarisaan businesska family-ga may kuma jiro beerteedu waxay u beeraan habkii hore hal greenhouse oo kaliya adeegsadaan laakiin anagu waxaan adeegsan doonaa laba greenhouse oo noo yaala laba greenhouse baan birooga haysanaa san halka ku soo qornay biri baan noo yaala kaliya waxaan u baahnay in bacdi soo iibsano diina aanu beerta kale ula baxno oo ku soo marka aan halkaas ku beerno Cabdirasaaq waxaan ugu sii darayaa waxa jira anagu waxaanu hay'ado ayaan u xareysanay proposals hay'ado ayaa markaa naga caawiyay xaq qolkii bacday store house-kii aan wax ku keysan lahayn qolkii shaqaaluhu nooga shaqeynayay ay fadhiisan xafiisyadii iyo qolkii aan ku toobir lahayn shaqaalaha ayaga intaa waa la noo dhisay sidoo kale greenhouse-yaduna waxa u baahan yihiin repair in la nagu sameeyo la noo dayactiro qofkii wax haysta ayaa wax loogu daraa si uu wax u soo saaro marka anagu waxaan aaminsanahay haddii maanta la baritaaro inaanu macnihii dhammaan gobolada wax gaarsiin karno oonu wadanka aanu macnihii kala dagaalami karno wadamadan kale wax u soo dhoofinay Ethiopia ka mid tahay Yemen ka mid tahay in aanu anagu macnihii wadanka inta qayb lixaad la aan ka ciyaari karno inaanu wax gaarsiin karno waad mahadsantihiin beertaas oo jireenkana waan idinku hambalyeeynayaa inaad sii joogtaysaanna waan idinku sii dhiirigelinayaa markaad dalbateen $7,370 greenhouse yarna sii jiray mid kalena rabtaan inaad rakibtaan dalka oo dhanna doonaysaan inaad khudrad gaarsiisaan sidee isu qabanaysaa beertiinu ma karaama lagu afuufaya macnihii laba greenhouse wadanka inaanu adeegayn waa caqliga saliimkiiba uu garan karaa laakiinse anagu waxaanu raacinaynaa dhul maadaama dhul weyn haysano in aanu dhulkaa weyn hektaar beerno oo aanu dhowr hektaar aanu beerno anagoo ka faa'iideysanna
macnihii roobka oo samayn doona roobka biyaha roobka qabsan doona biyaha ugu badan waxaan u isticmaali doonaa qaybta macnihii dhulka caadiga aan u isticmaali doonaa irigay laakiin se greenhouse-yada waxaan u isticmaali doonaa insha Allah 30% sababtoo ah greenhouse-ku biyo badan ma qaato dhirta waxaan garanay inay biyo yar ka baxayaan sidoo kale drip irrigation system oo isticmaalayo biyaha ugu badan waxaan u isticmaali doonaa marka dhulka anaga ka soo saari doonaa 1 hectar ugu yaraan $60,000 anaga ka soo saari su-aasha kale aad weydiinaya waxay tahay waxoogaa business modelkiin waxaad moodaa inaanu aada u caddayn ma cash cropka ama khudradda tusaale ahaan oo kale fudud ayaad iibinaysa ayaad beeraysaan ma siir dabadeed baa keenaysaan oo maaragtay liin iyo maxay dhirweyna ma waxaad iibinaysaan muxuu ahaaye nursery baad tihiinoo dhirtii intaa beertaan baad iibinaysaan waxoogaa waxaad moodaa in presentationkiinu dhowr jeer uu soo galay aad maasantay waa su'aal wanaagsan vegetabiliska iyo fruitiska labadaba waanu ka beeraynaa vegetabiliska waxaanu ka beeraynaa dhulka caadiga iyo greenhouse-ka labadaba annagu adeegsan dhulka caadiga drip irrigation baanu adeegsanaa greenhouse-ka gudihiisana drip irrigation baanu adeegsanayna fruitiskana waxaanu adeegsanaa surface irrigation-ka waraabka loo yaqaano marka fruitiska laftarkiisa waanu soo saarayna fruitiska uu ku yaala hadda geedo waaweyn baa beerteeda ku yaala saan hore soo sheegay bisha 12 ilaa bisha 3 waxaanu soo saarnaa liin macaantaanu soo saarnaa bisha 2 ilaa bisha 6 inta u dhaxaysa waxaan soo saarnaa amba bobayga bisha 6 ilaa bisha 9 inta u dhaxaysa waxaan soo saarnaa amba lafkaan soo saarnaa bisha 9 ilaa bisha 12 waxa socda saytuunka marka fruitiska waan soo saarnaa laakiin waxaan ogaanay in fruitiska looga baahi badan yahay vegetableska marka in adigu koob sharaab cabto inaad maanta bariis ku soo qadayso ka mudan horta marka hore inaad bariis ku soo qadayso oo basal lagu soo jarjaray ayaa ka mudan baan malaynaya marka labada waan adeegsanaa laakiin fruitiska hore waxay ahayn fruitis traditional ah waxaan doonaynaa kuwa cusub inaanu keenno oo 2 sano ku dhalaya gebigooda waa barnaamijka diyaariyooyinka YouTube-ka ku jira ayaan ku soo bandhigay marka fruitiskaas waxay kaga duwan yihiin fruitiskeenii hore saytuunku wuxuu ku dhali jiray muddo dhowr sannadood ah geedu intuu ku gaadhayana muddo badan bay ahayd liin macaantuna sidaas leeg waxaan doonaynaa inaanu keenno liin macaan gebigeedu waa 2 sano ku dhalaysa saytuun gebigiisu waa 2 sano ku dhalay technically cid aqoon u leh oo agronomist ah oo dhirtan dabadda ka keenaysaa muddada yar ee gaaban jiraysa ama ku dhalaysa inay wadankeena ciidiisa iyo cimiladiisa la qabsanayso ma daraasayseen mise waa markii ugu horeysay 2 geed oo cambalaf aan beeray cambalafku waxaan ognahay inuu yahay geedka ugu muddada dheer la Soomaalida wuxuu ku dhalaa muddo 6 sanadood ah cambalafka markaanu beernay waxaan ogaanay inuu ku dhalayo 2 sano oo kaliya imika dhir baa laga keenay maalin dhaweyd dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaan inagu caawiyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaan ka soo gudoomiyay wasiirka beeraha hadii aad daawateen dhirtaasi waa dhirta aan hore u beernay anagu inuu tijaabinay waxa ay ku dhalaysaa dhirtaasi 2 sano sidoo wasiirku sheegay dowladda deegaankii nooga timiday laakiin anagu waxaan ogaanay 2019 waanu beernay waanu tijaabinay waxaan ku dhalaysaa muddo 2 sano ah markaas ay kaga duwan tahay dhirteena caadiga inagu hadii Soomaali nahay isbedelka ma naqaano haddii tusaale ahaan oo kale awgaa la xoxda ku cuni jiray zero ilaa imika zero baynu ku cunaa isbedelka ma naqaano haddii awgeen dhirta saa ugu beeri jiray maxay noo diideen inagu isbedel sameyno oo beeraha caalamka la jaan qaadno iyo ku Itoobiya isla arabsiyo miyaad ka warqabtaa beer qolo Syrian ay ka shaqeyso oo liin macaanta hayaan markaad u tagtay ku oranayaan 2 sanadood bay ku dhalaysaa saad sheegayso waa ku sheegay tijaabi barnaamijka ka diyaariyo markaad dadku qortay YouTube-ka cadays bariis waxaad arkaysaa in YouTuber saaxiib nahay oo maalin arabsi u soo booqday dadna barnaamij baan ku diyaarinay magaalada arabsiyo marka waxaa ka mid ah dhirta Syrianka iyo muddada ku dhalayso haddii marka YouTube-ka ku qortay cadays bariis sida sawirkaaga ka muuqda waxaad arkaysaa annaga oo dhirtii sharaxayna وجعلنا لها دي وقت يعني لأنه كقولون داونه مرة أنا يتجابنا هو تجابنا نرتاز ما تسند أدب مسيحين عبد الرزاق يا عبد الناصر وكسر جامعة النيو جنريشن واحد شغالين رنتي برامج كذي الدفاعين بالدفاعية السميين برامج كذا سيدا وفهفهين قيبتي لبعض قيمتها هي نوجد بينه waxaan ku bilaabaya Cabdiraxmaan Buraale waxaan jecel balina weydiiyo kooxda ka socotay New Generation ee Cabdirasaaq iyo Cabdiqani Cabdinaasir wixii iska bedelay bal markii uu difaac arkay iyo dhibci hore u bixiyay ayaa Cabdiraxmaan si fiican bay isu difaaceen laakiin dhibci halkii baan u daayay halkooda u deysay waa tahay Cabdi Yusuf
markii hore boqolkiiba 50 baan siiyey markaa difaacoodii markaan dib u yara qiimeeyey 5 baan ku daray kaliya waa tahay Ismaaciil Maad anigu waxaan siinayaa 60 toban baan ugu daray toban baad ku dartay aad baad mahadsantihiin waxaan jeclahay shacabka horta la sii dhaweysaan wareegga saddexaad ayaan ku kulmi doonaa mar kale daawadaalintaasi waxaan kusoo gabagaynaa barnaamijka xisaab badan ee tartanka halabuurka qaybtan oo ay ku tartamayeen arday ka socota jaamacadda nutrition ee magaalada Hargeysa waxaan u rajaynayaa inay guuleystaan qaybaha dambe tartanka ayaa ay mari doonaan runtii oo maalinta ka dambe xiisiisu sii kordhi doono ilaa iyo gabagabada rabantaan isla gaarno in guuleystayaashu halkan ay la yimaadaan lacag badan ay ku guuleystaan ganacsigoodana ay hirgeliyaan waxaan si gaar ah ugu mahadnaqnaa bangiga caalamiga Premier Bank oo barnaamijka maalgeliyay barnaamijka waxaa martigeliyay iguna jaamacadda badan oo iyana u mahadnaqano iyo howlwadeenada kale ee ugu horeeyeen xubnaha guddiga Professor Ar iyo dhammaanba xubnaha guddiga ka shaqeeya halka ku qiimeynaya ardayda tirada badan ee barnaamijkan sida joogtaan oo la qayb qaata iyana waan u mahadnaqayaa iyo howlwadeenada kale dhinaca duubista ku hawlan dhammaantiin waxaan ku dhaafanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh walaal safarkaygii Turkiga saacadaha ka hadhay lacagta inta leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan ku sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefanka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sadageel baxaa si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan Premier Bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha kay ku daba sidaysaa oo aan koon baba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya balina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiyaa Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel